waxaan ahay gabar walaashiina oo idinka baahan waanay waxay idin soo gudbin rabaa qisada ku dhacday sanooyinka hore. sida tan ayay dhacday 3 sano ka hor anigoo jaamacadda sanadka u dambeeyay maraayo ay qisada ku dhacday. jaamacadii waxaa jiray wiilan asxaab ahayn aan aad isku dheereen. ardayda kale tadamay iga xigay waan isku dheereen wiil aad isku fiican ahayn. maalintii u dambeysay aan jaamacadda soo xiriirnay waxay dhacday waa la dabaaldegayay jaamacadii cid kasto yani friends kasto bis ay u dabaaldegayeen dhanba u dabaaldegayeen aniga wiilkana friends aan ahayn asxaabaan ahayn. maalinta xaafadan iska soo aaday waan daalna guriga markaan isticmaalay soo wacay wuxuu dhahay halkee aaday xaafadan aadaan dhahay soo xuray inaan dabaaldegno soo ma jirto waxaan dhawaan daalanahay waan iska yarseexanay bari safaraan ahay waxaan u jeedaa reerkii xaafadan u socdaa aan muddo ka maqnaa. soo ayuu wuxuu dhawaan waan ku imaanay cabitaan iyo waxaan soo gaday xaafadan iskaga dabaaldegayna hayaan ilaa milka wiilan aaminsanaa uu ahaa asxaabaan ahayn. waxaan dhahay hayaayahay bal xaafadda markaad soo gaartay soo daqiiqadooyin kadib wuu imaaday soo wacay waan u yeeray guriguu soo galay. maasha allah sida caadi ahayd waan soo dhaweeyey guriga keligeedan joogay markaan reerkii ila degnaa guriga kala maqnaayeen. markaan soo dhaweeyey wiilkii aanay xumaan kama filanaynin ilaa wiilka asxaabaan ahayn muddo sanooyin dhan. kolkaan soo dhaweeyey ilaa cabitaankii aan cabiyey waan iska damaashaanay. qofka bini'aadankana damac ugu jiraa dhalinyarada intooda badan qofku waa damci kartaa qofka adigoo asxaabtihiin waa damci kartaa. ilaan wuu idamacay wiilkaan asxaab nahay laakiinse anigoo fiirinayo damigiisa wuu fulinayay. wuxuu cabitaankii ayuu wax igu daray wuu banaanka kala imaanayay. cabitaankii maraan cabay waxay ugu dambeysay anigoo qoslayno oo sheekaysanayno iska faraxsan aan yiri ugu dambeysay. saacadooyin kadib ayaan soo kacay soo yar laabtay kan soo indaa kala furay waxaan soo kacay anigoo mariyo dhan qabin oo qaadan oo sariirta saaran. waan yaabay maxaa ku dhacayaan isdhahay wallaahi waxaan filinaynin meesha ka helay yarto. waan kacay anigoo xanuun badan ihayaan kacay gurigaan fiiriyey albaabihii furan yihiin. waan baaray wiilkii waan u wacay war heblow waan dhahay misana waa tagayba markiiba buu tagay wiilkii. waan damcay qolkii ku laabtay waan wacay telefoonkiisa waa xiran yahay. waan yaabay talada yar waxaan u sheegtan garan waaye waan iska aamusay waan iska asturay ceebta meesha markaa taalay. wallaahi waan iska aamusay xaafadii baan soo aaday galabtiiba waan soo baxay digadaan soo goostay meesha waxaan ka joogo ma jiro Soomaaliya. soo waxaan damcay inaan reerkeena u bandhigo misana way ilaahan weysay waayo wax iga qaadanaya ma jirto idhahayo qof weyn baa taynaya wax saaq ugu sameyn kara ma laha qof kasta idhahaya haddaan dhaho fikirkeyga haddaan dhiibto wixii u dhacay waan iska qarsaday wixii u dhacay waan iska soo naabtay xaafadii. maalin kamid ah ayaan magaaladii reerkeena degnaayeen waxaan la kulmay wiil dhalinyaro ah. maasha allah waan isbaranay magaaladii isku baranay maalin kamid ah waan bartay waan xiriirnay nambaraan kala qaadanay ayo dhowr cishan xiriirinay waan isfahanay xiriiri soo bandhigtay wiilkii xiriirkiisa waan aqbalay. maasha allah waan isjeclaanay si xad dhaaf aan isku jeclaanay sida caadada tahay qofka markuu xiriir idinka dhaxeeyo
wax kasta waa isku sheegatiin yani waad u sheegani waxa qalbigaaga ku jiro u sheegi haddii dhibaato ku haysato iyo haddii farax ku haysato labadaba u sheeganaysaa qofkii markaan aan wada soconay lamaanahayga ahaa waan u sheegay saanay qabsatay muddo laga joogo 8 bilood ayaa saanay qabsatay nolosheeda sidaas ayay tahay miyadu raacsan tahay miyadu jeceshahay mise wadada iga tagaysaa baan dhahay mayo dhahay waan ku jecelahay aniga wiilkii aan sheekaysanayna markaas uu qiimaada qurbaha wiil wadanka jooga ma ahayn soo qof waayo aragu ahaa oo iga weyn ahaa oo iga khibrad badan ahaa waayo ana dhibkaygu dhacay banaan xillo igana tagay uu qaatay sidaan ahay bas muddo laga joogo sanad waan wada soconay waan isjeclaanay si xad dhaaf ah mar allaala markuu dhaho xafdiina ma u bandhig arrinkeena inaan soo guursadaan rabaa mar allaala aan dhaho xafdiina u sheeg hooyaday sareerkeena aan wada tagaan dhaho aan u bandhigtid haddana waxba yar celinay marka ii dambeysay aan go'aansaday inaan reerkeena u sheego maalin galabe aan u tagay reerkeena hooyo ande waxaan jirto inaan aan wada soconno aan rabo inuu i guursado ee sida aragtaa kolkaasay tiri wiilkii reer heblo ahaa ayaaba kusoo doonaya kugu daraacaay ee ninka kale ah wadatay maxay tahay kasaxan hooyo inaan wiilan aqaanin sideen u guursadaa siduu ii guursadaa mana sheekaysanina qofka aan sheekaystaan ku keenaay ee ii guurinaysa markaasay tiri mayaan ka maqlan waxaas hawaar iyo ducnida dooranaysaa wiilka reer heblo ayaad guursanaysaa ee iska daa kan kala warkiisa nin qurbo jira ma rabaane ilaa xogteeda way sii haysay ee gabdhii walaalayaa u sheegeen markaasa waxaan dhahay aniga wiilka ma rabo hooy waxay dhahday ama ducaa qaadanay ama hawaar baad qaadanay anigoo fiirinayo anigoo jecel ducadii hooyaday oo marna aan ka gabanaynin aan jeclahay inay i duceyso harii haween misena fiirinayo sharaf darrada ii imaanayso waayo wiilka igu darayso warka ma hayo arrinka igu dhacay aniga maanta haddaan ogolaado wiilkiisa waxaan ogahay uu arko inaan gabar ahayn asigan ahayn uu soo furayaa reerkeena rumaani gabadha aad siisteen gabar ma ahan uu dhihi sida dhaqanka tahay gabadha marna anigoo iska ilaalinayo inkaarta hooyaday iyo waalidkayga oo sharafteeda dhowraayo ninka aan jeclahay aan dhahaan guursanaya waayo asaga sharafteeda wuu aqaanaa wuu ka warhayaa xogteeda oo waxa igu dhacay wuu ka warhayaa si kastoo igu qaabilsan yahay bal waxaa asxaabay waxay igula talin lahaydeen in sheega bal waxay dhihi lahaydeen ducada waalidkaada qaado oo sharaftaada banaanka soo sharaf la-aantaada yacni waxay igu dhacay waa taqaanine mise inkaarta waalidkaada qaado oo sharaftaadana dabool bal midkii idinla fiican ila soo socodsiiya aan wada soconay lamaanahayga ahaa waan u sheegay saanay qabsatay muddo laga joogo 8 bilood ayaa saanay qabsatay nolosheeda sidaas ayay tahay miyadu raacsan tahay miyadu jeceshahay mise wadada iga tagaysaa baan dhahay mayo dhahay waan ku jecelahay aniga wiilkii aan sheekaysanayna markaas uu qiimaada qurbaha wiil wadanka jooga ma ahayn soo qof waayo aragu ahaa oo iga weyn ahaa oo iga khibrad badan ahaa waayo ana dhibkaygu dhacay banaan xillo igana tagay uu qaatay sidaan ahay bas muddo laga joogo sanad waan wada soconay waan isjeclaanay si xad dhaaf ah
mar allaala markuu dhaho xafadiina ma u bandhigtid arrinkeena inaan soo guursadaan rabaa, mar allaala aan dhaho xaafadiina u sheeg hooyaday sareerkeena aan oola tago aan dhaho aan u bandhigtid, haddana waxba yar celini. marka ii dambeysay aan go-aansaday inaan reerkeena u sheego maalin galabe aan u tagay reerkeena hooyo aan dhahe waxaan jirto inaan aan wada soconno aan rabo inuu i guursado ee sida aragtaa. kolkaasay tiri wiilkii reer heblo ahaa ayaaba kusoo doonaya kugu daraaye ee ninka kale ah wadatay maxay tahay. markaasaan xandhay hooyo inaan wiilan aqaanin sideen u guursadaa, siduu ii guursadaa mana sheekaysanine qofka aan sheekaystaan ku keenaya ma ii guurinaysaa. markaasay tiri maya waana kaa maqleen waxaas, hawaar iyo ducunibaad dooranaysaa, wiilka reer heblo ayaad guursanaysaa ee iska daa kan kale warkiisa nin qurbo jira ma rabaane. ilaa xogteeda way sii haysay ee gabdhihii walaalayaa u sheegeen. markaasa waxaan dhahay anigu wiilka ma rabo hooy. waxay dhahday ama ducaa qaadanay ama hawaar baad qaadanay. anigoo fiirinayo anigoo jecel ducadii hooyaday oo marna aan ka gabanaynin aan jeclahay inay i duceyso har iyo haween, misena fiirinayo sharaf darrada ii imaanayso, waayo wiilka igu darayso warkama hayo arrinkii igu dhacay aniga. maanta haddaan ogolaado wiilkiisa waxaan ogahay uu i arko inaan gabar ahayn asigan ahayn wuu soo furayaa reerkeena u imaani. gabadha aad siisteen gabar ma ahan uu dhihi sida dhaqanka tahay gabadha. marna anigoo iska ilaalinayo inkaarta hooyaday iyo waalidkayga oo sharafteeda dhowraayo ninka aan jeclahay aan dhaho waan guursanayaa, waayo asaga sharafteeda wuu aqaanaa, wuu ka warhayaa xogteeda oo waxa igu dhacay wuu ka warhayaa si kastoo igu qaabilsan yahay. bal waxaa asxaabay waxay igula talin lahaydeen ii sheega bal waxay dhihi lahaydeen ducada waalidkaada qaado oo sharaftaada banaanka soo sharaf la-aantaada yacni waxay igu dhacay waa taqaaniine, mise inkaarta waalidkaada qaado oo sharaftaadana dabool. bal midkii idinla fiican ila soo socodsiiya.